haddii aad rabto gurigaada inaad iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato at the same time inaad samayso waa the only video u baahan tahay maanta waxaan kuu sheegayaa step by step guide saa u samayn lahayd arrintaasi laakiin haddaan uga cusubta markii waddan soo boqotay ay tahay magacayga waxaa la yidhahdaa daahir bulshada waxaan ka caawinaa gurigooda iska sii gadan guri cusub inay iibsadaan insha allah soo qabsadkayga sahan realty.com waxaan laaj karaynay program dadka ka caawinayna guriga mortgage-kooda inay ku bixiyaan 5 to 7 years inay ku bixiyaan so programka waxaa loo yaqaanaa the fast mortgage freedom insha allah waxaan uga soo boqotaa website-kayga faster mortgage freedom ad insha allah soo radi karay webinarka dad badan ay soo radi karayay si aad uga soo qayb qaadato dadka asxaabtaasi aad ka mid noqoto okay ku bilaabaya haddii aad rabto gurigaada inaad iska gado guri cusub aad iibsato at the same time kaliya maaha su'aashaasi dad badan ayaa isoo weydiiyo dadka qaar waxay isoo weydiiyaan gurigayga ma iska gadaa marka koowaad guri cusub aad iibsadaa ama haddii aan noqdo ka waran stock aan noqdo laba mortgage inaan bixiyo noqoto ama dadka qaar ay noqdaan homeless aan noqdo so taasi say u dhacin waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano the right plan qorshe fiican ayaa u baahan tahay iyo team oo waxaan horshan hore u soo qabtay for example haddaan ku siiyo hadda shaqadan dad badan ma soo qabanay laakiin haddaan ka soo qaato laba qof ka soo qaato for example anisa oo kale anisa gurigeed wuxuu ka iibsaday ku yaalay Bloomington bay ka guurtay waxa uu guurtay Shaaka bay u guurtay maxamed gurigiisa Brooklyn baa ku yaalay uu ka soo guuray wuxuu soo guuray Barnesville so waxaan ku tusay maanta strategy-ga dhan soo u shaqeeyo gabiyaanta soo faanta there's only 3 simple steps amari doona tan waxa ku oggolaanaysa inaad ogaato xudhan soo shaqeeyaan number 1 first you have to know your numbers oo nambaradaada waa inaad ogtahay nambarada markaan ku leeyahay waan ku sharxi doonaa just 1 minute see sorta gurigaada inta taayda nambarada aan ku sheegin inaan gurigaada soo arko waa muhiim aan ogaado at least gurigaada condition ku sugan yahay sidoo marxaladda ku sugan yahay so then waxay oggolaanaysaa inaan ku sameeyo wax loo yaqaano CMA oo comparative market analysis oo gurigan qiimaha saxda suuqa ku joogo saad ogaato exactly so that day waxaan ku siinayaa wax loo yaqaano net sheet kan waxay noqonaysaa gurigan lacagta ku kacayso everything markaa gado wax adiga ku harayo so taas markaad ogaato exactly then waxaan ku diray the next step waxaan ku dirayaa lender oo ah bangigan ku dirayaa inaad soo qaadato warqad loo yaqaano pre approval letter warqadaas ku oggolaanayso inaad hadda guri raadin karto so maadaama already aad ogtahay gurigan lacagta ku soo harayso sababta waxaa ogtahay budgetkaada aad ogtahay lacagta down payment-ga ogtahay closing cost-ga everything lacag ku kaci lahayd waad ogaanaysaa so then waxaan kugu sii gudbinayaa saacada ka soo hadalnay ninka lenderka ah daa lenderkaasi nambaradu raan garanaya because already waad ogtahay lacagtii down payment-ga dhigi lahayd so maadaama guriga lacagta ku haraysa ogtahay already aad ogtahay so then ina ka washma u bandhigaysa lacagta inta saahista leedahay iyo whatever jeebkaada wax kaga darayso wuxuu lacagta guriga ku sameeyay iyo adiga waxaad ku darayso waa u sheegaysaa dan taas waxa ku oggolaanaysaa monthly payment inay ka yaraato lacag badan hada dhigto step 2 waa meeshan waa dadka badan tan cilada kaga imaato well you have to pick the right strategy ina isticmaasho noqonaysa there's only 3 strategies isticmaali kartaa jirta there's option 1 aan ka bilaabaya gurigaada marka koowaad inaad gado then guri cusub ay iibsato this one way fiican tahay oo marka koowaad gurigaada gadaysa lacag badan aad jeebkaada soo galayso laakiin waxa u baahan tahay guri meel aad ku sii noolaato u baahan tahay option 2 waxay tahay guriga inaad marka koowaad iibsato then gurigaas ka sii gado tan waa samayn kartaa ilaa ciladu waxay tahay waa inaad isla qaataa 2 mortgage the only way ugu qalmaysan waxay tahay waa inaad lacag badan samaysaa dadka badan ma sameeyaan the third option waa contingent offer mostly dadka 90% aan la shaqeeyo kana isticmaalaan so basically waxaan lagu sheegay waa shuruud waxaan uga dhigaynaa gurigan inay ka guureynin ilaa guriga kale aad ka hesho dadka badan buyerka ma jecel yihiin no ma jeclo laakiin dadka badan 90% way u shaqeysaa laakiin markaa wada kulano ayaan ku sharaxi doonaa wax faa'iido u leeyahay mid walba qasaarada u leeyahay in adiga ku fiican qoyskaada step 3 waa inaad time gareynaa the transaction-ka time markaa ku leeyahay gurigan waxaan rabnaa inaan close gareyno the same day waxaan rabaa gurigan inaad ka soo guurto gurigan kale aad soo degto aan isku begno waqtigii so taas waxa dhacdo inaan aniga ku sameeyo basically coordination aan sameeyo oo ka bilowdo gurigan aan list gareyno showing-kii iyo dadka office-ka noo soo diraaye ilaa la close gareynay everything inaan time gareyno waa on time aan ka dhigno and ideally saa aniga rabo waxay tahay guriga inaan close gareyno subaxdii kale galabtina guriga kale ku guurto at the same time ku guurto usually the only way u dhacayso waxay noqonaysaa game plan fiican inaad haysato waay qof walba ma samayn karo so ogow gurigaada inaad iska gado guri cusub inaad iibsato inuu ku wareeriyo ama qaxar iyo rafaada u marta maaha just like how basically waxa u baahan tahay a solid strategy aan ku sheegay had strategy u baahan tahay iyo waxa u baahan tahay lender fahansan systemkan oo noocyadan soo shaqeeyaan iyo real estate agent oo shaqadii hore u soo qabtay laro inta soo baahan tahay haddii aad rabto gurigaada inaad iska gado guri cusub ay at the same time please waxa aad website-kayga sahan realtor.com nambarkayga ka soo qabso nambarkayga waa heli doontaa fadlan soo follow garee video aan kala soo waragto assalamu alaykum